شيف عاقل رشيد محمد شامبير oo kamid ah cuqaasha Soomaaliland oo ku sugnaa magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Berbera ayaa waxa uu ka hadlay muddo kordhinta golaha guurtida uu sameeyay golaha baarlamaanka ee Soomaaliland oo maanta la mudeeyay inay dhacdo dabayaaqada sanadka 2019 muddo kordhinta golaha guurtidu anu waxaan isla waa qodob dastuuri ah muddo kordhinta golaha guurtidu hadday intay ka dhigayaan anu waxaan isla wixii waajib ku leeyahay shaqadooda ahayd muddaday ka dhigeenna iyagay ku xidhnay insha Allah ta'ala de waqtigay ka dhigeen hadhow sidoo de u suurto galaysa farsamahan maan garan laakiin hadii la yiraahdo sideed u aragtaa muddo kordhin de waa shay iyagu lahaayeen oo taa waxaan u maleynayaa ma kordhin kartaan cid kuma oran karayso iyo idinku xaq uma leedin waa shay iyagu gaar u leeyntaas marka muddo kordhintu waa wixii caadiga ahaa shaqadooda ahayd ay qaban jireen taasaan u arkaa شيف عاقل رشيد محمد شامبير oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa kale uu dhaliilay qaabka loola dhaqmay 7 xildhibaan oo kamid ah golaha guurtida ee Soomaaliland oo maanta warbaahinta u sheegay in laga hor istaagay inay gudaha u galaan hoolka golahaasi laakiin su'aashan kale di weydiisay ahayd xubnaha golaha guurtida ee golaha saakir laga hor joogsaday inay ka qayb galaan codeynta waa calaamadii dictatornimada waa calaamad khaldan waxaanay muujinaysaa inaan waxba la wada lahayn oo nin waliba halkuu joogo isagu uu leeyahay haddii bilayskii la hadla taliyihii baa ku xidhaya haddii guurtidii la hadla guddoomiyaha ku saaraya haddii daakhiligii la hadla wasiirka ku fuulaya markaa nin waliba meeshu haysta hadduu idhaa cidima hadli karto anigaa leh waa calaamadaha dictatorka nimankaasi xildhibaanay ahaayeen golaha guurtida ahaayeen ra'yi bay wateen ra'yi bay lahaayeen ra'yigoodii in lagu ixtiraamo codka laga badiyo ayaa haydeen la yidhaa golaha ma geli kartaan waa xaaraan anigu taa waxaan isleeyahay ugu dambeyntiina Chief Caaqil Rashiid Maxamed Jambiir ayaa dul istaagay caqabadaha hortaagan in doorasho dalka ka dhacdo muddo kordhinta waxa waday oo jecleed xukuumadda iyada doonaysay 19ka inaan la dhaafin qofka koowaad doonayay ahay xisbiyadan mucaaridkuna way la rabeen oo way la doonayeen oo iyaguna 19ka inay dhacdo way rabeen laakiin anigu saddexdooda waxaan u arkaa si aan macquul ahayn sababtu waxa weeye 19ka March ilaa December 7 bilood baa u dhaxeeya diiwaangelintii ba hadhay xeerarkii la ansixiyaa hadhay waxa hadhay in diiwaangelintii dib loo furo doorashadii oo dhacaysa golaha waxaanu maqalay commissionku yiraahdeen 10 bilood oo heshiiska iyo intaas baani ku jirin baan u baahanahay de sidee u suurta galaysaa 9 bilood imika waxaan soo shaqeynayna sugayaan ma muddo kordhin kilomin haddana sugnaa de sidee u suurta galaysaa marka khilaafka xisbiyadu haddaan la daweyn oo xadhig laysu sii deyn oo aan miiska la isku iman de doorasho inay qabsoomayso ima muuqataba ومسلح سلبان سدي تلفزيون كأريال بربرا.